qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan barwaaqo gaarne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل كسو دواada muuqaaladii taxanaha ahaa ee aan halkan kusoo baahin jirnay ee ku saabsanaa maadada ingiriiska gaar ahaan gradeeka 8aad weli waxaa ku jirnaa unitka afraad ee charity muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay critical thinking si adag u fakerid critical thinking si adag u fakerid wuxuuna ku yaalaa pageka 57aad marka waa sheeko ama wax xalxiraalo kale ah. There is a man with a problem. He has a tiger, a goat, and a bundle of grass. He comes with them on the bank of the river, which is full of dangerous crocodiles, and he needs to cross the river with each one of them. There is a canoe which carries only 2 passengers at a time. There is a man with a problem oo dhibaataysnaa. He has wuxuu lahaa ninka a tiger shabeel, a goat ri, and a bundle of grass iyo xirmo caws ah. Okay, he comes with them wuxuu la yimid iyaga cawska xirmada cawska iyo rida iyo shabeelka. He comes with them wuxuu la yimid on the bank diinka ama qarka of the river webi which is full of webigaas oo ay ka buuxaan dangerous crocodiles yaxaaso khatar ah. Ani needs wuxuuna u baahday to across inuu kala gudbo the river webiga with each one of them mid walba oo iyaga ka mid ah. There is a canoe waxaa jirtay doon ama huri which carries only taasoo keliya qaadaysa ama qaada 2 passengers at a time laba rakaab ama laba qof halkii jeer. The canoe doonta can only carry keliya waxay qaadi kartaa tawan qofka ama midka ama ruuxa who rows it oo kaynaayo ama bawadaayo, and another one iyo mid kale who sits on kaasoo ku fadhiisanayo its remaining back seat kursigeeda dambe. It's remaining back seat kursigeeda dambe. However si walbaba ha noqoto the man's real problem dhibaatada dhabta ah ee ninka is that waxay tahay he cannot leave oguma tagi karo the goat rida with the tiger shabeelka because sababtoo ah the tiger shabeelka will eat wuxuu cuni doonaa the goat rida. sidoo kale dhibaatadiisa kale waxay tahay he cannot leave oguma tagi karo the goat rida with grass cawska because sababtoo ah it will graze way daaqaysaa ama way daaqi doontaa the grass cawska. haddii aan markale ku celino the canoe doonta can only carry keliya waxay qaadi kartaa the one ruuxa who rows it oo kaynaayo ama bawadaayo, and another one iyo qof kale who sits on oo ku fadhiisanayo its remaining back seat kursigeeda dambe. However si walbaba ha noqoto the man's real problem dhibaatada dhabta ah ee ninka is that waxay tahay he cannot leave oguma tagi karo the goat rida with the tiger shabeelka because sababtoo ah the tiger shabeelka will eat wuxuu cunaa ama cuni doonaa the goat rida. dhibaatadiisa kale waxay tahay he cannot leave oguma tagi karo the goat rida with grass cawska because sababtoo ah it will graze it rida will graze waxay daaqi doontaa ama badaaqaysaa the grass cawska. su-aasha waxay tahay marka how will he get siduu ku samayn doonaa ama siduu ku heli doonaa. Okay, how will he get siduu ku samayn doonaa all the three dhammaan saddexdooda across mid ka gudbiya the river webiga while halka he can only carry keliya uu qaadi karo one saddexdooda mid ka mid ah
at a time halkii jeer in the canoe kuna qaadi karo doonta jawaabaa dhehaynaa marka answer fast ugu horeyn waxaan ka dhigaynaa sida qof hadlaayo oo asaga ka jawaabayo fast ugu horeyn I will across waxaan kala gudbi doonaa the river webiga with the goat rida marka hore ridaa gudbinaysaa then kadib I will come back second mar labaad soo noqon doonaa I will across waxaan kala gudbi doonaa the river webiga with the tiger shabeelka hore waxaa u gudbiyey ri markaana waxaan gudbinayaa shabeel okay and will come back haddana waan soo noqon doonaa laakiin waxaa la soo noqon doonaa oo aan soo celin doonaa with the goat rida ayaa la soo laaban doonaa ridii kow aa gudbiyey waa soo celinaa maxaa yeelay shabeela marka hore geey mogta meesha wuu cunaa haddii kale third marka saddexaad I will across waxaan soo gudbin doonaa with the grass cawska ayaan soo gudbin doonaa because sababtoo ah the tiger shabeelka does not grace ma daaqaayo the grass cawska at last ugu dambeyn I will across waxaan ka gudbin doonaa the river webiga with the goat ridii kow aa ku bilaabnay ayaa markaa u dambaysininaa maxaa yeelay waxyaabo badan la xeeladaynaye marka ugu horreysa ridaa lagu bilaabay haddana sidaa u jeedid ridaa u dambaysa wax la gudbinaayo marka waxyaabaha la kala ilaalinaya ka mid tahay haddii marka si kooban aa u dhaho waxay noqonaysaa marka hore ridi soo gudbiso mar labaad shabeelka soo gudbiso ridi soo celi haddana okay shabeel keligiis meesha uga soo tag ridi soo celi cawsna wuu ka horeeyaa markaa doonta ka dejiso cawska soo saaro shabeelna wuu kaa horeeyaa okay because shabeelka cawska ma cuni karo kadib ugu dambeyn ridi soo gudbi marka ayadaan marka hore ayadaa la hor gudbiyey haddana ayadaa ugu dambeynayso halkaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa haddii ay tahay marka ugu horreysay aad soo booqato chanaalka waxaad dalbanaa inaan ugu soo biirto aad subscribe dhahto haddii hore ay subscribe-ka ugu aheedna inaa muuqaalka like saarto sharena garayso si asxaab fara badan oo muuqaalka ugu gaaro waa mahadsan tahay soo duceeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu